بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وحنا maanta joogna magaalada Hargeysa waxa shalay toosadaxdii galabnimo xaqii uu yimi oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa ilaahay naxariis shanaha ka waraabiya Suldaan Barre Xaaji Xuseen Caraale oo kamid ahaa hal doorka Soomaaliland ragga madaxda dhaqanka ugu muddo karsan ee ugu mas'uulsan kamid ahaa waxaan guud ahaan ka tacsiideynayaa xaasaskiisii awlaadiisii ehelkii iyo qaraabadii marka koowaad marka labaad waxaan ka tacsiideynayaa beelweynta Haashim Abukar oo uu Suudaanka guud u ahaa marka saddexaad beesha Arab guud iyo dibadba ayaan halkan tacsiid tiiraanyo uga dirayaa marka afraad waxaan ka tacsiideynayaa bahda dhaqanka oo uu ka tirsanaa oo iyagana maanta uu ka baxay marka shanaad waxaan ka tacsiideynayaa qaranka Soomaaliland guud iyo dibadba dhamaantiin waan tacsiid mugiyo miisaan leh waan halkan uga dirayaa Suldaan Barre Xaaji Xuseen Caraale shakhsiyadiisa marka aan in yar ka hadlo 2018 iyo 19 baan guddi wada galay in muddo ah kooban baan wada shaqaynaynay wuxuu ahaa nin ahlu khayra wuxuu ahaa nin mas'uuliyadda oo haya ay u qeexan tahay oo garanaya wuxuu ahaa nin kelmadda oo xaq u arko aan la gaban sideeda u sheega wuxuu ahaa nin nawaaniye waqtiga aan guddida ku wada jiray oo guud ahaan ku dadaala arrintaas si cadaalad in dhinac walba looga eego adoon aad iyo aad runtii u khayr badan oo afgaaban oo umadu ay u siman tahay buu ahaa ilaahay waxaan uga baryayaa in dambigiisa dhaafo ilaahay waxaan uga baryayaa dambigiisa Suldaan maxaad dadka xasuusin kartaa taariikhda Soomaaliland ku lahaa Suldaan Barre iyo nabadeyntii iyo arrimahaas runtii taariikh mug iyo miisaan leh oo aan la dafiri karin buu ku lahaa Suldaan Barre intii uu xilka dhaqanka hayay wali kelmad laga naxo Suldaan Barre lagama maqal waxa uu ahaa Suldaan Samatalisa waxa uu ahaa Suldaan door weyn ka soo qaatay hubka dhigistii iyo nabadeyntii waxa uu ahaa Suldaan islaax bayna naas inta badan u taagan oo goor walba ka shaqeeya la heli maayo warbaahin baa tiinay wuxuu ummadda ku kala kaxaynaya oo fitna Suldaan Barre ugu jirtay YouTube-ka ama warbaahintaasi marka nin aad iyo aad runtii u qiimo badan ayuu ahaa madax dhaqameedka kale maxay kaga dayan karaan Suldaan Barre dhamaantood waxay kaga dayan karaan talaabooyinkii wanaagsanaa iyo cadaaladii iyo dhexdhexaadnimadii iyo mas'uuliyad wadareedii ummadda oo dhamay ay u sinayd in lagaga daydo ayaan ku boorinayaa Suldaan Barre ugu dambeyntii Suldaan Barre maalmihii dambe waxaan xanuunsanayay maxaad adigu shakhsiyadaada intii aad iska taqaaneen Maxamed Haali wallahi Suldaan Barre denin aan muddo dheer aqaanay buu ahaa wax aan ku sifeeyo oo aan wanaag ahayn oo aan samatalis ahayn oo muddiisu jiida aan ahayn oo muddo karnimo iyo mas'uuliyadda dhaqan ay hayaa inay u qeexan tahay aan ahayn oo aan ku aqaanay runtii ma jirto ilaahay waxaan uga baryayaa qabriga inuu uga yeelo rawda min riyaadil janna ilaahay waxaan uga baryayaa inuu qowlka saabidka carabkiisa ku sugo ilaahay waxaan uga baryayaa jannatul firdawsatul a'la inuu geeyo ilaahay waxaan uga baryayaa xilka dhaqan ninka bedelaya Suldaan Axmed inankiisiyana inuu ilaahay ka dhigo mid dariiqii aabihii mara mid ummadda oo dhan ay u sinaato mid cadaaladda iyo xaqa ku sugnaada mid ilaahay cimriga uu barakeeyo mid umadu ay mahadiso isagana maanta kulli xabaasha dusheeda biidilaahi taala lagu caleema saari doono inagana dhamaanteenba inteena nool ee ka dambeysay reer Soomaaliland oo dhan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu Allahumma suqna tawbatan nasuha qabla al-maut waan leeyahay ilaahay khaatimada khayr inoo khatimo wa ma tanta Cabdiraxmaan